دقاق هذيك صعو دقاق قعنت هذا بوبسي هذه صعو بعد صعو شل راس كده فريسون برا صعو قال نكاس راح غالب نكاس راح بحنو هذه halkan aan ku suganahay waa dugsiga Galayr Garafir School oo ah goob lagu barto wadida iyo kaxaynta gawaarida noocyadooda kala duwan waxa uu ku yaalaa degmada Hoodan ee magaalada Muqdisho gaar ahaan agagaarka Tarbuunka xirfadda gaari wadida ayaa ah xirfadda ugu muhiimsan ee casriga ayna hadda ku noolnahay halkan aynu ku suganahay waxa jooga wiilal iyo gabdho kuwaas oo u badan dhalinyaro waxay ku mashquulsan yihiin wadida iyo kaxaynta gawaarida noocyadooda kala duwan magacay waa Nadiir Aftaaxi Jimcaale waan ku dhawaad halkan maxaa ka baratay halkan waxa ka bartay gawaarida sida geerka automatic-ga van gaariga lagu baraa adiga 6 days lebrona ku fiican hada meel fiican maraya iyadoo training-kayga ay dhamaanaa meel fiican maraya waxaasna waxa dhigi kar macalinka u sababa أنا جاري أدي يقول سويلي جاري موضة أنت يقول 5 days أدي جاري الحمد لله ويفريا هبا يقول لي وحكمه أدوك كله في ملكه كله مال شق بدنا اللي يصوب نديجي جارينا ما أخان فانت هنا برت أساسا يقول بس هنا شق استعمل بدك ده حس كشق است وطبعاً هذا الحمد لله the 5 days إذا أنت 10 days والله 5 days وحفي عنا رجينا 5 days فترة هاي أنا تبغى بركي كده من وادوا والله المقعي وعلى أحمد عثمان waxaan ka bartaa gaari geerka automatic hadda waa ku fiicanahay sidoo hore waa dhaamaa waxa ugu dhaliyay maadaama magaaladan xirfad loo baahan yahay ana arday jaamacad dhimiya aan ahay marka xirfadiga kororsanay marka hadeertan waxa rajeyna inaan ku shaqeysto macnaha mar dhow marka oo koorsiga ii dhamaado macnaha jaamka aan iska caabi karo mafahant marka waa dadaalkiiga wax kasta ku maraa haatan waxaa la joogaa macallin ka mid ah macallimiinta dugsiga Galayr oo ardayda bara sida kaxaynta gawaarida loo barto soo dhaw adoo magacaaga ku bilaabay aad u dhawahay magacaygu saddexaad waa Cabdiraxmaan Abuukar Maxamed waxa ahay macallin ka tirsan dugsiga Galayr aan Galayr Driving School dadka marka waxaan barnaa gaari geerka waxayna ku qalin jibiyaan gaari automatic ah soo raaxa xitaa u keenay meeqa maalin ku bartaan dadka inta badan waxay dhalinyaro u badan yihiin waxay ku bartaan adiga 15 maalin ku bartaan dadka xoogaa madaxa adagna bilaa looga dhigaa kookaasa gabdhaha iyo wiilasha waxa u badan horta wiilasha u badan gabdhahana marka inta badan waxay u kala baxaan horta dumarka aad baabuurta u barta dumarka la qabo waaye marka nin ajnabiga ah gaari ama baraay inta badan dhahan ma fahanti marka hadda waxa sameeynay macallimada sameeynay oo dugsiga ku soo kordhinay waxa la lahaa macallin ayaan waxaan leenahay shirkadeena waxay ku taalaa dalacada Cabdiqaasin Dagaadega dalacada ka soo horjeedka isbitaal Muqdisho marka ardaydaada hadda ninkaan arday waaye oo gadaasheeda fadhiya waxa uu harta 5 maalin bis bari ka bilaawata waxa loo bixin rabaa laami dadka marka 15 bari qaata dhalinyartii u badan yihiin 10 maalin ugu horeyso 5 maalin ugu horeyso istaag sida loo istaago sida loo dhaqaaqo matoorka gaariga in ku filan macnaha darawal wuxuu anaga ilaahayna baray wixii makaaniga daba waa gooni laakiin wuxuu qof kurga sida lugta loo furo sida saacada kuleelka diblatooraha waxyaabaha gaariga inta badan ku imaan kara aan dadka barnaa waxaan ku qalin jibiyaan gaari Corolla dugsiga soo biirinay aad iyo aad anaga dugsiyada kale waxa uga fiicanahay shahaadada way gataan shahaadada $15 waaye midaan buug shuruucda wadooyinka ku tusaayana waxa waaye aysan $20 free ku bixinaa haatan waxa la joogaa maamulka guud ee dugsiga Galayr oo lagu barto gawaarida noocyadooda kala duwan wadistooda iyo kaxayntooda marka hore waxaan salaamaa TV-ga anigoo ah manaajirka dugsiga Galayr Driving School dugsiga uu ku yaala dalcada Cabdiqaasin magacaygu waa Awil Faarax Guutaale dugsiga waxa barta rag iyo dumar baabuurtan waa laba option waa automatic iyo geer iyo automatic aan baraa qofka dadkuna maanta waxay noqotay nolol maalmeedkii xirfad ahaan waaye qofkii barto skill noloshiisa ma waayo maxaa idin ku dhaliyay in asaastaan dugsigan waxaan ugu dhaliyay inaan asaasno horta dugsiga maanta iyo maalin dhow ma wixii la asaasay xilli aan dalku dawlad leen baa la asaasay maanta dawlad leeyahan waa ka sii macaan tahay gaadiidka inta waa ka bateen macallimiintiin inta waa ka bateen dunidana hore u gudubtay maadaama dunida saddexaad aan joogno dunida saddexaad maadaama aan joogno adduunka waxa la qaybsanaa maanta gabdheen iyo wiilasheena all waa darawaliin dugsiga Galayr madaxiisa imise arday ka qalin jibisay wallahi ma sheegi karo 10 kun kor oo dhaafayaan waa sometimes ardayda waxa laga kulmaa laakiin si wanaag
gaarigu waxa lagu barayaa wuxuu gaari awood leh oo gaari laba break leh sometimes ardayga break uu hilmaami karaa wuu mashquuli karaa maskaxdiisa meel kale aadi karto ama haadku ka dhuuman karaa haadku ka maqan hadduu gaari soo galo dhinaca looga dhacaa waxaasoo dhan marka waxaan leynaa systemka ay leedahay first one caagadaan u dhignaa marka hore caagadaan u dhignaa si haadka qofka bini'aadamka ugu saxo marka haadka saxa kadib baan laami geynaa qofka haadka aqoon laami ma la geey karo asoo position aqoonna ma la kaxayn karo waa inside offside boxside waa horay gadaal dhinac inta mas'uuliyadda ardayga inuu asaga ka faal qaada macallinkana waa waajib ka saaran ardaygaas inuu gacanta ku dhagaa soo dhawaada